maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooteeko uu helinayaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka caasimadda iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dawladda hoose ayaa xarunta guud ee dawladda hoose kulan wada tashi kula yeeshay ganacsatada suuqa gobonimo. Kulankan wada tashi ayaa daarnaa sidii halkaasi loogu soo kordhin lahaa dhismayaal cusub isla markaana dib u habeyn iyo dhismo cusub lagu sameyn lahaa suuqa gobonimo gaar ahaan dhismaha xusbiga. Markii kulankaasi si rasmi ah u furmay ayaa maayarka caasimadda Hargeysa waxa uu halkaasi ku sharaxay qorshaha iyo naqshada. Iminka inta aynu qorshaysanayno ee aynu ka wada hadlaynaa waxa weeye aqalka laftiisa dhismihii iyo intii ka hooseysay si intii danyarta ahayd ee deganeyd wax loogu sameeyo. Halkaasi baakin bay noqon doontaa aqalka weyn oo waa wadada wixii ka talowsan. Koonahan waa koonaha bari hangaraan ugu talagalay. Halka istaankii muuska ayaa ah qaybtii ku xigtay. Istaankii muuska ko ah halkanna hangaraan ugu talagalay. Qaybta dhexe waa dhex weey. Halkan waxaan ugu talagalay istaankii caanaha iyo intii hada ariga wada socotay. Halkan ayagu waan gaadi baa ka soo xiga dhinacan. Halkan waxay noqonaysaa kaaw koonaya waa debdemiskii wakaaladii biyaha oo iyadna xafiiskii joonalka ka dhiga doonta iyo degmadii la xalaata ka joon marka hangaradaas oo dhan saynu isugu filaysiin lahayn ayaynu filowgeed galaynaa. haddii ay noqoto muus hadday noqoto hadhuudh hadday bacadiyaalka noqoto hadday noqoto kaboolayaashii hadday noqoto tumaaladii raislayaashii oo iyadana raislayaashana inaan wax uga goyno iyo xamaamadii midna dhinacaasaan u raacin doonaa midna dhinacan insha allahu tacaala. kolka waxaanu idinku maqnayn in meeshiiniyo habaysan oo meel lagu noolaan karaya ku noolaataan marka anagu qorshahaanu idiin soo diyaarinay waa sidaa weeyaan waad kaga ay bixin doontaan. Ganacsatada suuqa gobonimo ayaa iyaguna wada tashigaasi ka dareen celiyay. aad iyo aad baanu soo dhaweynaa waxaan aad u hambaliyeynayaa maayirka sida sharafta leh oo noogu yeedhay si macaan baan ugu qanacnay maayir tan maanta maayirku soo jeediyo halkan noogu yeedhana waynu ku hambaliyeynaynaa. waxaan leenahay maayirka 100% wuu ku mahadsan yahay iyo dawladda dhexe iyo madaxweynaha iyo cid ka howlgashayba. aad iyo aad baan horta ugu faraxnaa anagu una soo dhaweynay taasina horta tuu ilaahay nagu simay alxamdulillah aanu kana filayna maayirka iyaga ducaa iyo salaan iyo hambalyana waanu u raacinay. waxaan ugu mahadnaqaynaa sida sharafta leh oo maanta noogu soo dhaweeyay wixii aanu niyada ka doonaynay. allaha awood dilina la garab qabto. taskaduna halkaas waxa ka hadla qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka xildhibaan Axmed Cali. danyartu waa dadka ugu mudan cid leedika horreysiinayana ma jirto midhoon baanu idinka doonaynaa inaydaan cid maqlin waayo cid wax loo qabto kor loo qaado dadka cidiba cidii ay ka hooseyso dadka la soo gaarsiiyaba loo baahay. intaas kadib halkaas waxa ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dawladda hoose Khadar Yuusuf. wadugtii waqooyiga hangaraa laga dhisay khudradda dadka danyarta ay ka faa'iideysanayeen hangarkii ugu dambeeyay wuu dhameystirmay waxa iyaduna garab socotaa oo iyaduna degdeg loo dhameynaya dadkii halka iyaguna kula noolaa ee ku ganacsanayay oo hawshoodiina gacanta lagu hayo wuxuu maayirku gacanteedana runtii lagu hayaa dahabliida iyo ganacsatada kale ee biyo dhacay eeriyada degan oo iyagana qorshoodii gacanta lagu hayo. waxa islaayeen malaha dawladdu way diluudi qaranku maalin quraata warwarkiinu kama bixin habeen iyo maalin waxa laga fikirayay sidii dadka danyartaa qof wala oo ku ganacsanayay suuqa gobonimo meel u heli lahaa. ilaahay jisaay ka siiyo maayirka dadaal fara badan buu idin sameeyay madaxweynahana aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa oo isna qayb ka ahaa iyo wasaaradaha kale khuseysaba waxa halkan la kula tashaday qorshii suuqa inoogu dhismi lahaa waana markii ugu horeysay sidaad ka warqabtaan hadii jeer dawladdu qorsheeday samaysataa maadaama dadkii looga faa'iideynayo inta badan qorshiyo dhameystiran ba dadka loo soo bandhigaa ma lagu fuliyaa wada tashiba maanta la idin sameeyay iswaad ku faraxdeen sidii loo soo bandhigay sidii maskaxdiina ka guuxaysay runtii loo soo dhigay naqshada waxaan ilaahay ka rajaynayaa in isaan ugu fuli doonto. waxa daba laga maarmaana oo horena aynu ugu wada hadalnay iska sheekayno hore liisaska suuqa dadka ganacsatada meesha ku ganacsanayay qolo kastaaba guddi bay leedahay guddigaasi sida xalaal u noqoto ay iyadu corruption ka u ilaaliso waxa la idinka rabaa qof waliba oo ganacsada oo deganaa meesha inaad soo qortaan. ugu dambeyntii halkaas waxa ka hadlay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooteeko. dhulka aynu deganayn xusbiga dawladda hoose shaqo kuma lahayn waxa lahayd dawladda dhexe. waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradiisa la shaqeeya dakhiliga iyo awlaha guudba markii aanu nashqadan ula tagnay si naloo siiyay aqalka xusbiga markii hore waxa la siiyay xisbiga kulmiyo in xusbiga laga dhigay mar labaadkii jaamacadda la siiyay maadaama dhinaca shana ka deganayn ganacsatadii ka deganayd dhinacan sokona dadkiina danyarta looga baahnaa waxay noqotay inay suuq ganacsi imka loo bedelo. suuqa ganacsi waxa ugu xaq leh intii deganayd anagu liiskii waanu haysanaa idinkana liiskiini waa la idinka doonaya. qaybta fooqana waxa laga dhigi doonaa mool ganacsatadana waxa ugu xaq leh intii deganayd ee joogtay. Cabdiqaadir Cudi on Cable TV Hargeysa. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya samtel shirkadda dadweynaha